magaciisuna wuxuu ku dhammaanaaba bacda waxaa ka horeysa ya-da waxaa ka horeysa هذا معكوه رئيس الصعب ميضي سهيب آدم حسن ما شاء الله سهيب آدم حسن أوكم كسعود مركز الفلاح ما شاء الله الفلاح ما شاء الله الفلاح التركي لا بد الفلاح ما قال الدنيا أنا معلق تسوي يا أنا معلق ديك يا ما شاء الله معلق يزن وراس دمك كرامية ما شاء الله مين يكتبون شيء والله والجينا وحنا حبيبي ده نكر ربع الدجال بقى له قراءة برضه هذا بسموه نكر ربع إنه ويل كيس من جمال ديس يجارو كنت وأنا قراءة برضه وأنا كيف قرأت ترتك إن شاء الله وصلنا كدم بق وأنا قراءة الله شرفه وأنا قراءة الله عزيه وأنا قراءة الله قاضي كتاب إلهي سموه تكبير ما شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مقعيق وحالها أحمد عبد بشير وحا شرف نوئه هنا نجوغنو مركز الفلاح الإسلامي وكويا له مقالة غارسة ودنك كينيا غارهان قلبيتك غارس مركز الفلاح wuxuu guuleystay arday kamid musaabaqadii laga sameeyay magaalada Gaarisa ee Quraanka oo dhan ahayd wuxuu ka soo galay markaska koobaad waxa uu soo galay arday magaciisa la yiraahdo Suhayb Adam Hassan ardayga oo musaabaqada sanadka horena 15 juz ku galay haddana Quraanka oo dhan ku galay sanadka hore markuu 15 ku galeen koob buu ka ahaa hadda oo uu ku galay 30 jusna wuxuu ka noqday waxa weeyaan lambarka koobaad fadliga ilaahay ba iska leh subhanahu wa ta'ala waxaan kaloo u mahad celinaynaa ardayga laftigiisa juhdi badan soo bixiyay iyo macallimiintii habeen iyo dhaar la soo dadaalayeen khayr allah siiyo waxay ku sifaysan yihiin qowlkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu kuma imaanin ilmo yar oo 12 sano jiro oo aan u dhalanin carab ajami inuu quraanka uu xifdiyo wax sahlan ma ah laakiin arimaha khaaska waxa iska leh quraanka wala qad yasanna al-qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir bu ilaahi yiri marka laakiin iskama imaanin عيار كما إيماني جهد فرب بدن يدال إيوه دال فرب بدن با يا وحي الله صومره مركا معلمين جهد بحيين خير الله السيو إلهنا كعب المريو ميزان كودا آخر الله وحاويان هاوغ الشبو ويلكا يرأي صوبحة هي أمحا أهنه وحان كرجيني أمد أنفعه وإهل كيس أنفعه ودين إسلام أنفعه
oo ummadiisa muslimka anfaco inuu ilaahay ka dhigo waxaan kaloo rajaynaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uga baryayna inuu ku dhaho min ahli alqur'aan inuu min ahli alqur'aan uu ka dhigo waxaan haynaa waalidkiisa inuu qaari yahay oo waxa weeye qur-aanku uu xifdisan yahay macallinna uu yahay yaa waxa weeyaan ognahay asagana insha allah wadadaas uu aabihiis ka dhaxal inuu sii wado yaan ku rajaynayna oo ku barbaarinaynaa waalidiintii dhashe khayr allaha siiyo aad bay u dadaaleen ajirkooda aakhira ilaahay unbaa gudi karaa adduunyadana ilaahay ha ugu anfaco waxaan rajaynaynaa inuu ka dhigo quraada iyo ahlul qur'aanka markuu rabbi ka sheekeynayo aakhira markii la tago waxa weeyaan waalidku taaj baa loo xiri iska dhaaf ilmihii iska daa waalidka dala taaj loo ma jirto waxbarasho kale oo aakhira markii la tago waalidku uu darajada helayo quraanka kaliya iska leh marka dadka waxay fiiraan waxyaalaha yar ee adduunyada laga helayo wiilka wuxuu ku guuleysay gaarigan gadaashayda khayr allah siiyo dadkii waxa weeye muxsiniinta ahaa ee sadaqaysta ma garanayno annaga laakiin waa dad muxsiniin ah marka dadka ayaga miisaankooda aakhir ilaahay ha ka shubo waalidooda allah u naxariisto xoolahaas ilaahay ha u barakeeyo waxay u horeen xoolo ay ku soo daaleen inay kitaabka ilaahay ku anfacaan oo u horaan oo ugu taageeraan yani kaalmadaas ay ku bixiyeen wiilka ma kuma bixinin shakhsina kuma bixinin laakiin kitaabka ilaahay bay ku bixiyeen marka ayaga in kasoo aan garanaynin waxaan rajaynaynaa inay waxa weeyaan fariintayda gaarto nimayo khayr allah ina siiyo jazaakumullahu bil khayr xoolihiina allah inii barakeeyo meesha ka oomantiin oo dhan ilaahay waxa weeyaan inii fududeeyo ilmaha ilaahay inii hanaajiyo ahlu iimaan iyo ahlu diin allah iniga dhigo waxaan kaloo u mahad celinayaa lajnadii sharafta lahayd ee imtixaanka qaada oo sheekh cabdiwahaab uu weynaa jamciyatul qur'aan iyo sheekh culimadii qaadaysa imtixaanka oo dhan hal u garan mahayo jazaakumullahu bil khayr waana leenahay khayr allah ina siiyo waa shaqo aad u qabateen mujtamaciinna iyo diintiinna rabbi agtiisana ka sugaysaan waxa weeyaan waa shaqo loo baahnaa magaalada waan ku soo kore anoo arday baan soo joogi jira dugsi caadi oo quraanka la jijabinayo ma ogay magaalada Gaariso meel taxfiid aan ka jirin yaan soo gaarnay haddana alxamdulillah meel kasta oo aad marto taxfiid baa ka furan madrasa ka furan maahid baa ka furan waxaan garan magaalada Gaariso madrasada ay ku taalo madrasatu najaax iyo salaam oo acdaadi yaan garanaynaa oo aan soo marno jiilkanaga ee soo mareen haddana meel kasta markaz iyo madrasa iyo magac kasta u bix khayr badan ka socdaan jira khayr allah siiyo macallimiinta dadaalaysa iyo culimada waad mahadsantihiin ilmahana loo duceeyo ikhlaasna ha lagu daro intaas waa dardaaran amal kasta oo la qabanayo hadduu ikhlaaska u waayo waxa weeye waxaad ka helaysaa male marka ikhlaaska aan badino ilmahana aan u duceeyno inuu mujtamac ilaahay noo hagaajiyo macallinkii wiilka yar quraanka soo bare ee dugsiga macallinka ka ahaa oday baan ka dugsiga meesha aan joogno markasul falaax baa lahaa laba qayb ay iskugu jirtaa qayb waa taxfiid waa qaybka wiilka yar ka soo baxay qayb waxaa jira ilmaha markay taxfiidka ka baxaan ka dambe ee galaan oo macahad diini ah oo lagu barto culuum sharciya iyo culuum luqa al-arabiyya iyagana waxa way wiiga hore ka qalan jabiyeen ardadeedii dufcadii afaraad magacayga waxaa la dhahaa maxamed cabdi shiidiye markaska falaax oo qaybta taxfiidka ah ayaan odayka aniga u weynahay macallimiinta marka wax kaloon ka hadli rabana male waxaan ka hadli rabaa wiilkan oo maanta ku guuleystay tartanka quraanka kariimka ah in badan macallimiintiisu ku soo dadaaleen asagana dadaalay inaad ogtihiin ma ogey macallinka hadduu kaligay dadaalo ase waalid la dadaalin mase aan ardayga dadaalin waa wixiisoo dhan waxaa waaye wax kama jiraan hadduu ardayga dadaalo oo macallinka iyo waalidka aan la dadaalin waa ladaalik marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa waalidka la dadaalay iyo arday iyo asaga oo dadaalay iyo macallinka oo la dadaalay maantana inaad aragtaan wada aragtaan baan u maleyn inuu mirihii gaaray marka haddana waxaan kula sii dardaarmayaa waalidka dhalay
iyo asagaba ma aha quraanka oo la xifdiyo kelimad diinta inuu hore u sii wado dadaalkiisana si laabo yaanan ugu dardaarmay waxaan u mahad celinayaa najdatul quraaniya yaan u mahad celinayaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa ka waxaanan arday ugu duceynayaa ilaahay inuu ku anfaco diintiisa oo kii anfaco waalidiintiisa alla ka dhigo magacayga waa xasan cabdi cabdullaahi markaaskaan ka hadlayno ka soconana waxaa waaye markazul falaax al-islaami gaar ahaan Garissa County Bula Hagar ama galbeed zone Bula Hagar meesha junction point yuu ku yaala macadka markazka alxamdulilah maasha allah maanta farxad saaid bay noo tahay quraanka tartanka inta aragta soo socday 7 bari Garissa County walaha maanta intaan lambarkii kaalintii koowaad aan galno saaid aan u faraxsan maasha allah marka taasna ma iska imaanin waxay ku imaatay juhdi iyo dadaal ka wala imaatay xagga macallinkii ardaydii ilaa ay waalidkii maasha allah taasna mira dhalkii ay dhalisay waa baarkan gaashanada yaalo gaarigan marka alxamdulilah maasha allah waxaan leenahay inta kale ardayda kalena hala wala dadaalo intii soo wala diitay muxsineed ahna waa insha allah waan mahad celinaynaa marka waxaan leenahay markazul falaax ha lagu soo dhawaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.